السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله Soomaali waa idin salaamayaa dhammaantiin saad u dhantihiin waa idin salaamayaa. waxaan idin leeyahay malaa'igtu ha idin gees joogto, ha idin horey joogto insha allah biidnillah. waxaan idin leeyahay waqti kastoo idin tahay ha idin wacnaato. khayrka allah na soo wada xijiyo walaalahayga Soomaaliyeed. horta maanta waxaan halkan usoo galay saad ka aragtaan ciwaankaba labadan beri inaan wax yar ka iraahdo. labadan beri waxaan arkayay wiil fanaan ah oo la yidhaahdo xariir axmed oo soomaalidu aada u jeceshahay. waxaan arkay oo saas loogu dhegan yahay. waxaan maqlay wiilkaas horey wuxuu ahaa wiil horey xaas u yeeshay. gabadha uu guursaday markaasna waxaa yirahdaa najax. hees waxaa loo qaaday la yiraahdo najaxdaydii. hadda waxaa la dhahay haddana in wiilkii uu gabar kale ku guursaday dhankan songe 5ka oo Soomaali galbeed. wiilkii oo dhan saas baa marka loo qaadaa dhigayaa saas. waa wareey, rag ha dhihin, dumar ha dhihin. in dumarkiina dhahaan nin aamin ma laha, nin aamin ma laha xalga soo dhahaan. raggiina ay dhahaan maxaan ku dhahaa waa wareey. horta wax yar oo aniga ra'yigaga ah anoon qofna ula jeedin ayaan idiin sheegayaa. wiilkan xariir la yiraahdo horta dambi uu galay ma jiro. ilaahay baa u baneeyay 4 xataa inuu guursado hadduu awoodo oo sharciga islaamku siduu dhigayo uu mid walbaba xaqeeda siinayo, uusan dulmi cidna ka gelin oo isagu uusan dambi isu keenaynin, waa guursan karaa. ma fahamteen? hadduu isagu rabinin inuu naago badan guursado, uu rabo inuu peaceful ku noolaa macnaha nabad ku noolaadana wuu heli karaa. laakiin waxa aniga ikululeeyay in la yiraahdo ninkii shalay lahaa najaxdayda naag kaleeto uu dhiganta ma jirto, naag kaloon la guursanaya ma jirto, naagsaan. walaal ragga Soomaaliyeed way wada dhahaan saas. dumarow idinka ragga hasku darinina. shar iyo khayrba waa inaad u toog haysiin. shar iyo khayrba waa inaad dhahdiin haa waanu diyaarad u ahaatiin. kii ilaahay dejiyo oo aan rabinin inuu naago kale iyo niman kale iyo waxaas naago kale iyo uu guursado waa la fahmay. naagtii iyadu badda kicinayso oo rabta inay niman kale guursatana oo saas rabta in lagu furano waa la fahmay. oo waa dad ayagu filimo kala wata. laakiin ninka islaamka ee wanaagsan ee diinta islaamku siday sheegayso ku dhaqmaya oo xaqa sooraya oon qofna dulmi ka gelaynin, hadduu xaas qabo iyo hadduu 2 qabo iyo hadduu 3 qabo iyo hadduu 4 qabo sharci buu u leeyahay. marka yaan la daba dhiganin wiilkaas yarkaa ee fanaanka isagu murtidiisii oo ilaahay maartay habigiisa waaye inuu heeso. anuu runtii heesaha saas uma dhageysto, laakiin markii aan arkay wiilkaas sida loogu daba dhegan yahay waan dhageystay heestii uu markuu xaaskiisa aroosayay hore. hees fiican oo qiimo leh oo ixtiraam leh bay ahayd. nin walbana xaaskiisa uu jecel yahay markaas heesta uu u qaadaya oo maxaan ku dhaha kii quraan yaqaanana quraanku ku aqrinaya. laakiin labada qof hadday isfahmi waayaan sharcigaa iyadana noo baneeyay in gabadha la furo. haddii oo markaas hadday rabto oo markaas ninka la way guursan kartaa. ninku hadduu rabo wuu haysanayaa. hadduu macnaha uu isdhaho ma wada hayn kartid 2 naagoodna ama ay isku fahmi waayaan way kala tegi karaan. xaas kale wuu guursan karaa. marka in laguba qabsado wiilka oo loo dabagalo xaas kale wuu guursada gabar buu shalay u heesayo soo wad. sharcigaas siiyey oo u dhigay oo raalli ka ah. marka waxaan idin leeyahay Soomaaliyey waanu isgaranaynaa. ixtiraamku waa muhiim waa
shareecada islaamka waxay dhigaysaa ninku inuu 4 guursan karo, dumarkuna ay 1 nin guursan karaan. nin kale waxay guursan karaan markii ninkaas hadda qabaa uu furo. nin kale way guursan karaan, oo ku kale way guursan karaan, oo koo kale way sii guursan karaan. mar walba haddii naagta la furo 100 hadday furto mid kale haddana way guursan kartaa. haddii la qabo laakiin nin kale ma guursan karto. ninku hadduu naa qabo 3 kale uu guursan karaa, waa hadduu awoodo. marka waxaan idin leeyahay ragow horta wiilka dhiga, dhulka dhiga wiilka. idinkuba waad guursataan, runta isku sheega. idinkuma naag la-aan baatiin, kaan xitaa naag guursanin. qaar waxaa jira laalaab kaleeta gala oo aan ilaahay ka baqaynin. war ilaahay ka baqa oo rasuulkiisa ka baqa oo dadka faraha ka qaada. gabdhahana waxaan leeyahay walaal, nin ha aaminin. hadduu ku yiraahdo adiga mehe indiya dhaga kale ma jirto, weligay naag kulama guursanayo ilaa aad ka gaaraysid 50 iyo 60 ha ka aaminin. because 50 iyo 60 haddaa isla gaarteen meel u socdaa iska yar, oday qaxooba cidina wax ku fali mayso. markuu 60 gaaro waa marka uu dego oo uu salka dhigaayo, yaa uu isleeyahay caruurtaada iyo xaaskaaga iyo maaragtay. waa markuu intuu cimaamadiisa iyo macawistiisa iyo xirto uu masaajidka subaxa walba jimcada uu aadayo oo salaada u kicinayo islaantiisa. laakiin inta ka horeysa uu biibiibayo ha aaminina. raggu intay markay mudakar noqdaan ee ilaa 60 gaaraan, markaas bay ixtiraamka dumarka iyo macnihiisa fahmayaan. inta ka koreysa soo maahan. halkaa hadduu ka baxo adna halkaa ka baxa. alaashan hadduu aad kala tagtaan uu furo uu halkaa ka baxo adna halkaa ka baxa. dhulka iyo darbiyada ha isku garaacin. nin kale oo wanaagsan haddaa heshid oo ku dhaqanaya guurso. haddii kalena ilma haddaa haysatiyo reerkaaga iyo ilmahaaga iskala fariiso iska hayso. marka taasaan idinkula dardaarmaya. wiilka dhiga baan idin leeyahay. naag hadduu guursadayna sharcigaa u baneeyey, tu hore hadduu qabayna hore sharcigaa u baneeyey, tu kale hadduu rabana wuu guursan karaa. wiilka gabdhahana waxaan leeyahay ha iska dhiginina malaa'ig. yaa ninka idin qabaa wuu guursan karaa. anugu nin runtii ma aaminayo. nin intaan ninka i qaba hadduu berita uu naa kala guursado waa waxaan u tooghayo. haddaan rabana waan ku joogi, haddaanan awoodin oo masayrku iga xoog badiyana waan bixi. marka walaalayaal ilaah khayr ha idin siiyo. dhaafa wiilka. gabdhaho idinkuna joojiya rabshada. khayr baa idin dhaafayaa. asxaabta intii hore ila joogtay waa mahadsantihiin. intiina igu cusubna fadlan soo dhawaada. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum.